waxaan la mid noqonay Sheekh Umar Balanburi Allah uu naxariistay baa ka sheekay jiray nin culimadii waaweynada ducaada kamid ah wuxuu oran jiray nin reer miya ayaa wuxuu arkay libaax yar oo dhaqso markaa uu la dhalo geed hoos fadhiya uu soo qaatay reerkiisii buu la yimid waa libaax yar riihi waxaana uga lisay caanihii buu siiyaa cawskuu siiyaa libaax yaraa muxuu noqday muxuu ku dhex koray waxarihii buu ku dhex koray waxaraha yar markay foofayaana uu raaca uu la soo daaqa uu la soo noqdaa uu weynaaday arigii buu la foofaa uu la soo hoydaa waa libaax arigii maalin maalmaha ka mid ah kayn libaaxyala ayay galeen libaaxyadii baa markaa ku ciyey arigii waa soo yaaceen libaaxii kaynta ku jiray baa arkay libaax weyn oo ariga riyaha dhex orday oo la socdo la baxsanaya oo la farxaya markaa buu yaabay uu soo orday uu qabtay isagii buu qabtay ka soo reebay arigii way farxeen khalaas way wada hadleen markaa war adigu libaax baa tahay buuli markaasuu may bacaa baan ahay adigu anaad igama tahay buuro jisigaygaa tahay markaasuu may anu bacaacdaasaa ka mid ahay buuli sidee looga dhaadhicin bal waa kaa sheegay libaax baa tahay sheekha markaa wuxuu yidhi xikmad cajiib uu ku daro wuxuu yidhi libaaxii baa intuu libaaxii soo qaaday buu barkad biyo ah gal biyo oo dhirta dhexdeeda biyo joogay buu dul keenay markaa buu eeg suuraddayda iyo suuraddaadu waa isku mid sidaa dhew saasuu yidhi afka kala qaad uu kala qaad indhaha saadhe aziir yacni qayli buu yidhi markaasuu qayli iga daba qayli uu ka daba qayli markaa buu yidhi libaax baa tahay adigu ma tihid adigu orgacna ma tihid rina ma tihid libaax baa tahay weliba waan ku tusinayna mari buu yidhi kayn waxaan tegaynaa buu yidhi xoola ay daaqayaan adigu cib buu yidhi adigu qayli buu yidhi anaa ku tusin doona libaax inaatee markaasuu marxaba kayntii mar alle markay libaaxyadii soo galeen ayuu isagii buu yidhi qayla ku dhif markaasuu qayla ku dhiftay xoolihii geeli wax walba waa la kala yaacay xataa duurjoogtii baa yaacday markaasuu yidhi haa ila libaax baan ahaa buu yidhi muslimiinta maanta adduunyada ku nool buu sheekhu exambaleka u soo qaato wuxuu yidhi waxaan noqonay libaax adhi ku dhex koray baan noqonay buu yidhi wada bacaac ummad bacaac ma taqaanaa ummad kubadun ciyaaraysa carabtii baa iminka lagu wareeriyey kubad banooni baa tirahdaan mise soo maa carabtii mamlakadii risaaladda ilaahay uu nebi maxamed uu ka soo saaray adduunka iftiinka gaadhsiisay ayaa maanta loo wareejiyey saliibiyiintii gaalo xunoo nijaasa uraysa ayaa maanta bilaad alxarameyn ka dhaadhacaysa iyagoo saliibkiisita ilaahay sidaa nagu eegi maayo insha allah waxaan rajaynaynaa isbeddel ilahay inuu keeni doono insha allah dhahada